kusoo dhawaada. Assalaamu calaykum. halka aad naga daawanaysaan waa Caynta Show Cati Media. fadlan sii shargeeya wanayna maanta ay bishu ay tahay 8 bisha Maarch 2022 waxaan ku wada dhigi doonaa qodobo isugu jira kuwa dalkeena gudaha iyo kuwa dibadda aan ku bilowno maanta qubanaha dibadda xalay maaragta fiidkii ay tahay waxa kulmay maaragta hogaanada dawladaha kala Canada, Ingiriiska iyo Holland iyagoo isku bixiyay magaca iyagoo isku bixinaya dawladaha abaabulaya maaragta dad la ku roon yahay gurmadka Ukraine isugu jira maaragta dad la ku roon yahay in la siiyo hub in maaragta la siiyo waxyaalaha ay u baahan yihiin isaanada maaragta waxyaalaha dhan oo maaragta haday u baahan yihiin daawo waxyaalahaas maaragta ayay maaragta isku magacaabeen inta wax ka badan ayaa laga sugayay Ukraine ay ka sugaysay NATO iyo Europe waxyaalaha ay ka sugaysay waxa kamid ah in hadwa la ku roon yahay ay u soo diraan diyaarado casri ah waxyaalaha ay kula dagaalanto waxyaalaha ay Ruushka maaragta isaga maaragta caabiso dagaalka duulaanka xoog gale oo ku soo qaaday waxyaalahaasna waa dabcan way ka soo maaragta way hadeertan ma sugayso waxyaalo maaragta hooseeyo oo suurtagal ahayn ayay sheegayaan saate mar walba NATO waxa ay ku qasban tahay awoodahana way kala dhuntaan oo way is xurmeeyaan hadii rabaha lagu tilmaamo waxyaalo la saaray cunaqabateeno sanctions waxyaalahaasna waxay maaragta suurtagalaya oo in badan ma aha waxaan ognahay hadeertan shidaalkii lit maaragta inuu ku gaaray hadwa la ku roon yahay meesha la yiraahdo Ingiriiska oo kale ama Yurubta ama maaragta Scandinavianka oo kaleba in ilaa $200 $300 ku sii socdo maaragta gaaskii uu nimanka inta ugu badan laga soo saaray maaragta nimankaas ay keenayaan Ruushka horana intuu dagaalka bilaabo ama bilawgiisa dagaalka bilawgiisaba 24 bishii horeba in waxaan ognahay inay iska xireenba Jarmalka oo ah inta ugu badan oo qaadanaysay maaragta shidaalkaas iska xireen maaragta tuubooyinka u soo dhacay maaragta dabcan waxaan rajaynaynaa xataa wasiirada dibadda kulmi doonaan waxyaalo badan inay maaragta halkaana colaada iska soo gabagabowdo oo halkaana lagu soo gabagabay wali Ruushka sida uu rabo ayay u badan tahay waxa kale oo ayadana qobanayna aan maanta ku sheegaynaa qabada gudaha siciidani iyo odayaashii maaragta gobolka bari ama nimankaas isimada ah intooda badan nimanka ma jirteen in uu ka yeelay waxyaalihii rabeen ayaguna ay u fududeeyaan maaragta nimankaas 16 xubnaa ee kuraasta hal mar ay yiraahdeen warna dhaaf maaragta waxyaalaha iyo maaragta dibka awoodo xamar un la tag oo hanugu soo laaban xillibaanada doore dabcan waa sax oo maaragta waa ku saxayeen mar haday iska musaafireen waxayna u ogtahay musaafirin wax inay soo siiyeen jiscinkii oo xamar ku iman lahaa iyadana isagoo waliba maaragta waxyaalaha uu asoo ku niyad weyn waxa weeyaan inuu madaxweyne noqdo ma inuu ra'iisul wasaare noqdo nin hawiyaha soo saara iyada naftirkeedana waxa la rajaynayaa in ay maaragta waxba maaragta halka ka soo naasacadaan aan u gudubno magaalada Beledweyne maanta waxa ka dhacay israasaaseen kooban dhimasho fara badan lama soo sheegin dabcan dhimasho dhaawacyo waxay waajiraan waxyaalaha maaragta xanta soo baxaya waxa kamid ah in shalay iyo daraad bay soo bilowday khilaafka u dhaxeeya dabageed iyo ninka la yiraahdo Cali Guudlaawe oo isku hayaan kuraasta xawaadle iyo maaragta dawlad gaal jecel oo yiri maaragta ninka la yiraahdo dabageed ana soo xulaya oo Kenya asaguna maaragta dhowr iyo 10 xubnaad oo marka halka ka horeyso beelaha kala oo maaragta sida gugundhabaha iyo waxyaalaha maaragta kuwa kale oo soo saaray Cali Guudlaawe halkaana loo daayay maaragta gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle oo gaal jecel in ninkan xawaadle matalaya oo dabageed inay soo kala saaraan 12 xubnood oo hartay maaragta halka waxa ka dhacay wali khilaafaadka ayaa taagan nimanka la yiraahdo nabadii nolol mar walba waxay ku dadaalayaan maaragta in labada nin oo madaxweyne ku xigeenka ayagu halka ay geysteen inay kala dilaan mar walba wax kala dabcan maaragta ma hayaan oo ah in hadii Cali Guudlaawe sida maaragta loogu talagalay oo u shaqeyn waayo in maaragta dabageed oo ka daacadsan inuu waxyaalaha qaarkood u qaato meesha dabcan la joogana oo Beledweyne iyo golihii xawaadle halka weeyaan maaragta asagana marti loo yahay maaragta dawlad ku waxaan maaragta marka dawlad ku ku soo gabagabeynayna qodobkeena maaragta marka la yiraahdo gado oo maanta banaan baxday banaan bax culus ka dhacay
si maaragtaa oo iyagu waliba afcad maamulka iyo dadkaba ay ku sheegeen guddiga uu Rooble baahana uu soo diray inaysan qaabil karin qaabili doon aysan imaan karin halka maadaama guddiyo ka horeeyay oo maamul goboleedyada ah oo wasiiradu arrimaha gudaha ay warbixinta faftiran ay ka geeyeen sanadkii hore bishii July iyadoo warbixintaas oo maaragtay ay u dhiibeen ninkii la Rooble iyaguna maanta way diideen manaan baxas ay sheegtaan iyagoo sloganada ay maaragtay ay soo bandhigeen waxa